KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay kulmiye islamic trade waa shirkad ku filnaatay kalsoonidii shacabka ku beer kulmiye ha ku kororta lacagtaade war khiyaaray bandowgii xalay ma la iska diiday war mayr galay xal la banado awal la dheelay war horta bandow iyo ka barafooka maxay kala yihiin war bandow in marsha low mayshal iin labaduba qofkii soo baxda la dilo waay anigu horta bandow baan idin aqaan waana leesma nuuxnuuxi karo abdullaw baadow markaan magaalada soo galaa leegu caayi jiray mana dhigi kartid mar dambe ilbax ma tahay he hay cunin hanay cadaynta saaba ka daran war bandow hadaa maqashiin waa maana alto war adiga ma Talyaaniga ka tagay you people are you in lockdown waran dhaawtiin ma gorada bandowga hali wal yara ka baradi lama saa guriga halka jiro lama saa walaaga dambeeyaan lamba meelifada maro ka baradi warorta hanala waalanine koow ereyga bandow anu af Soomaaliga meel ka soo gala ma qaane macnihiisu waa xayiraad bandowgii maalmo ka hor lagu baaqay waqtigiisii marka la joogo oo la rabay dadku inay xaafadooda ku xaroodaan bulshadii waxay u soo banbaxday inay bandowgu siduu u eg yahay arkaan iyada iyo ciidamadii baa qoorta isu galo meel la kala maraan la waayay marka waxaan ogaaday geedda Soomaaliyeed inay badow tahay ee guriyii lagu xareeyay oo banaanka u bixi karin ayay waxay isweydiinayaan bandowgii aaway suu eg yahay midabkiisu waasee war waa la yaabay warnamiyow hali bandowga sababtiis inuu ani ilmooga guriga ka oodagna ya islaan dariska ee mayba hadheegday ambalaas oo boofig leta hadheegdi haroorta iridaha ningaraaday mayleta ar bandowgii hafoofay habaaha aragnaan siin yaala ka tay war bandowgii hali dadku habartaan ama aysan baran waa hirgalay laakiin cabasho badan soo yeeraysa goobiga caafimaadka iyo dukaamada raashinka gaday ciidamadu waxay dhaheen hal xiro caanoleydii iyo hilibliyaashina meel ay mareen wayeen marka amar kala bixin wuxuu ahaa goobaha caafimaadka iyo dukaamada raashinka gada inaan bandowgu saameeynin war ra'iisul wasaare khayr wuxuu yiri inta bandowga la saaro saxaafadu ka mid maaha taliyaha booliskuna arintaas waa sii adkeeyay oo wuxuu yiri wariyaashu waxay gelinta qayb fiican ayay ka qaateen ayaga laftigoodana qaar meel lagu celiyo ayaa la sheegay warnimayaw karoona xooga ay dawladdu saartay bandowga kudkii ka horeeyay iyo shabaab maxaa loo saari waayay isagaaba muuqday oo qoryasitee warwariye Axmed Saciid Jalqsana la yiraahdo ayaa xal wareystay afayeenka gobolka Banaadir marka wuxuu su'aalay afayeen bandowgu ma dadka kaliya saameynaya ma adduunyada waa saameynaya war Axmed Saciid cadaawada xoolaha kala dhaxaysa mindha badana ma guriga la uga hoyataa aryaadaha dadka maanta jooga bandow soo ma gaarin bandowna minaad maqasho beedkaaga ha ka bixinaa la yiraahdo marka Soomaalida bandowga inay arkaan oo bartaan raba waxaan dhihi lahaay saacadii lagu qabtay ka hor gurigaaga dhexdiisa imaaw intaasna waxaan ku daraahay bandowgii waa bilowdaye banaanka dhaafee beedka joog bandowgii waa bilowdaye banaanka dhaafee beedka joog maahino hayehe bilowday ho banaanka jooge beedka dhaaf yartay warnimayow ninkii sooraan yara ahaa oo jilaaga ahaa shir jaraa'id buu cagaf burca taagan dusheeda ku qabtay jawaan ma la socdo mise waa ka haray war shirkiisa jaraa'id waxa uu ku bilaabay corona waa masiibo ilaahay keenay cidina iskaba eli karto aan ilaahay ka elin laakiin shirkayga jaraa'id oo maanta wuxuu ku saabsan yahay amarra corona darteed loo soo saaray waxaana ka mid ah masaajidda hal la xiro marka waxaan leeyahay marfishadii waa furan yihiin hoteeladii waa furan yihiin maqaaxiyihii waa furan yihiin majlisyadii iyo meel kastoo dadku ku kulmi jireenna way furan yihiin markaasaa la yidhi halkii meelahoo ilaahay noogu naxariisan lahay ha la soo xiro intaas kaloo lagu cibaadaysan markaad soo xirtaan masaajidka ku imaada ee marka hore masaajidda keliya ha u xoog sheeganina oo ha ka bilaabinina xiritaanka yaan ilaahayna rogina midda kale wuxuu ku sii daray burca qof baa laga helay coronavirus baa la yidhi markaasay dadkii ku soo yaaceen oo yidhaahdeen qofka coronaviruska laga helaya baan soo arkayna marka Soomaaliduna fudaydka iyo waalida
inta iska dhaafta xaaladda ha la socoto qof walbaa naftiisa ha ka taxadaro aryaadhaha soomaalida dhaqankeedu weligeedow sida ahay adduunyada mihishil ka dhacna dadku waa kala cararaa soomaalina waa u soo kudaa aasay kor dhoobataa mugga waa tii hore loo yidhi how darbuuxa xoola wow duudan dadkaana meehi duumatal darbuuxa xoola wow duudan dadkaana meehi duumatal war arrintaas sharraa'inda caddaa ka hadlay wuxuu yidhi masaajidda meeshii loo carari lahaayoo ilaahay lagu baryi lahaa weeye karoona aad bannaanka uga badbaadayna beydka ilaahay kuuma dhex fadhiyo marka masaajiddu waa meeshii lagu badbaadi lahaayoo ilaahay lagu baryi lahaayoo salaatulqoof lagu duka lahaaye yaan lagu degdegin oon xarig lagula ordin hayahee jenaraal indha caddayaan masaajidada qunful lagula kudinoo lagu boobin miyuu yidhi war masaajideedii beryaawunba qunuudkaga bahaay ilaahay maahan bani aadan hisaabii korna hal hiroy ka boobayna haatana war masaajiddu waa xidigaha dhulka haddii la xidhana mugdi buu noqonayaa dhulka horta waxaan la yaabay karoonaha iyo al-shabaab maxaa isu galay ayagaa masaajidada dadka ku gaadi jiray war weli karoona masaajid soo galay lama arag war karoona waxaan u malaynayaa xaaladda adduunka inuu wax badan ka bedeli doono ra'iisul wasaarihii talyaaniga ayaan war cajiiba ka maqlay wuxuu yidhi horta cudurkan ilaahayaa keenay allaana naga qaadi kara rabbi aan isu dhiibnuu yidhi aryaadhaha ra'iisul wasaaraha talyaaniga boosi koonte minowsaas yidhi tawxiidka bisaa ka dhiman war madaxweynihii maraykanka donald trump iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda bumbeeye waxay dhaheen shiinuhu waa inuu soo caddeeyaa meesha karoona ka yimid hayahee shiinuhu hadduu sheegi waayo cunaqabataynaan saaraynaa ma dhaheen war waa duqaynaynaa miyay dhaheen hadduusan sheegin shaybaarada maraykanku ma soo saari waayeen meesha karoona ka yimid maya xarfaane waa ka dhacsan tihiine xariifka talaam la dhahaayo xariifkan shiin biinu ka shakisan yahay aryaadhaha karoona meelow ka yimidba cilmi baaris kalamaan samaysa wax lagu ogaadaan idiin sheegaa kalamaan ma aqoon-yahanada caalamka ka hormareen aryaadhaha warka iga dhex gelina arrintaanu waa cilmiya karoona ilaa iyo hadda dadkou dilay boqolkiiba 90 in ka badan waa rag karoona haddii la yidhaana waa magac dhadig mugga inuu yahay cudur geberah oo xarash ragga u haya mahaas kaaga cad war dagaaladii sokeeyaba dadkii ku baaba'ay boqolkiiba 90 raggay ahaayeen aryaadhaha kuwaasoo xabaday ridaayeenoo iyo ka isdilaaye xow kuwaanu bartilmaameedsaday war adduunka awalba cilmi baaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday dadka ku nool in boqolkiiba 70 ay dumar yihiin marka ma raggii oo sii yaraynaya awalba ka yaray dumarka waryaada anigu caqli baaris aan sameeyey waxaan ku ogaaday qof kastoo Soomaaliya qabkiisa iyo qoyskiisa ayaa qaranimada kala weyn war gudoomiyihii gobolka Hiiraan ee diiday inuu xilka wareejiyo xalaa ciidan ku soo dheelmadaa la yidhi oo kor degeen marka indhihiisa kama maan yarayne saakau xilkii wareejiyey jinnimeerkiisa waa qabaa miya ilmayow haddaad xil laga qaadaydeen waa kaas haddaad wax ku dheefaydiinaha laqaqabaninaha ma yiri war ma haysaane jabuuti maanta oo keliya 150 qof dad ka badanaa corona laga helay tirada gudna waxay ku sii dhowdahay 600 horta annaga iyo reer jabuuti iyo muslimka oo dhan allah ka badbaadiyo laakiin tirada jabuuti laga sheegay waxay ii caddaynaysaa soomaaliya inta la sheegay inta aan loogayn inay ka badan tahay war coroonaad ku rafanaysiin intii corona u dilay in ka badan ay shabaab jamac ku toogteen dhalinyaro inay soo urureen dhaheen waa basaasiin hadda 6 dhalinyaro ay jamac ku toogteen maalin dhaweydna waa kuwii shan kala toogtay aryaadhaha ummadan haddii corona dilaayo shabaabna leeyhaya intay ku baxsee ka wixii dadka siiya oo kadis weerar ku qaadaa dhammaan way isla karoone war taa waxaa ka daran shacabka iyo dawladda inta shabaab dila maahana inta kale dadkaa la laayo unbay tirshaana shaqo kale ma qabtaan aryaadhaha horta shabaab weli karoona ma ka warrameen mase laga helay cabdullow hawaalan karoona kuma dhace warnamayo shabaab inuusan karoona ku dhicin ayaa noo ron sababtoo ah qofkii laga helo dadka isku qarxiyay dhahayaan casiiskiina uuntoo quraa caabudaad mudane caalamkana kitaab buu u dhigay caraf lahoo weyne culumaauddiinkii sharciga lagu cisaynayey ciraabaha murtida waa inay ku cibro qaataane jidka lagu cartami maanta waa sabab cadaabeede carablaabna qiil ma laha iyo waan cabsanayaaye xaqa noo caddeeyay runtan idinka maarmayne war taas waa arrin xaqiiqa ah macallimiinta dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada ka cawanaya oo la gunnadeenna 3 bilood ma helin maxay tahay arrintaas madaxtooyada shaqaale ka cabanayaan arkay arrinta macallimiinta wasiir goodaxa la weydiinaya
aryaadhaha wasiir goodax waxay macallimiintu dhaheen waa u geli weyna shaqaalaha dawladdow haddaad weydaan mushaar shaqada yaa loo joojinine intaad caqli kaashataan cabashadan aad joojisaan caloosha dulqaadku shuba shaqaalaha dawladdow jardiima qurxoon dhiso guryuhu yay naga dudumi shaqaalaha dawladdow dangaara intaad dhigtaan dan guudna u howlgashaan dalkan qarannimo khuduma shaqaalaha dawladdow dulqaad iyo daacadnimo intaad isku duubataan daafaca dalka iyo dadkaba bulshayahay calooshiyo u adkaystaa gaajada war haadha maxoogagii wadaniyiinta naga dhex kacay